بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي السود هذا waxaan rabaa in aad la wadaago website aad ka baran karto luqadda Englishka qaab free ah waliba website-kan waxaa laga leeyahay dalka Mareykanka waxaana ku baran kartaa luqadda Englishka qaab lacag la'aan ah adiga oo jooga gurigaada waxaana ka baran kartaa dalka Mareykanka waa yaab in aad adiga oo jooga gurigaada aad wax ka barato iskuul ku yaalo dalka Mareykanka waliba lacag la'aan aad ku barato waliba casharada kaaga bilaabayo meesha ugu hooseyso ee luqadda Englishka barashadeeda marka Englishka aad ayuu muhiim ugu yahay waxa uuna noqday furaha waxbarashada ama furaha shaqada ama waxbarashada cilmiga dhanka maadiga ah marka haddii aad rabto inaad luqadda Englishka barato waxaan kugula talinayaa in aad website-kan ka barato qaab lacag la'aan ah waliba aad uga barato marka aad rabto in aad website-kan iska diiwaan geliso marka ugu horeyso waxaad tagaysaa qaybta Google-ka waxaana ku qoraysaa meesha Google-ka wax laga raadiyo ayaa waxaa ku qoraysaa USA Learnis ayaa ku qoraysaa USA Learnis markaad ku qorto calaamadaas kuu soo baxayso ayaa klik ku siinaysaa marka aad ku dhufato kadib website-ka ugu horeeyo ayaa ku dhufa doonta oo kuu soo bixi doonta USA Learnis marka website-ka sidaan kuugu soo baxo waxaad si fudud ugu dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay start now waa hadda bilow luqadda hadda bilow ayaa loola jeedaa start now ayaad keli ku siinaysaa si aad isku diiwaan geliso marka aad rabto inaad isdiiwaan geliso halkan ayaad tagaysaa halkaas ugu hore waxaa ku qoraysaa emailkaada email waa inaad leedahay halkaas waxaa ku qoraysaa emailkaada ayaa ku qoraysaa markaad halkaas emailkaada ku qorto halkan waxaa ku qoraysaa magacaada ayaa halkaas sidoo kale ku qoraysaa sidoo kale halkan waxaa ku qoraysaa magacaada labaad ayaa halkaas ku qoraysaa sidoo kale halkan waxaa samaysanaysaa lambar sireed adiga kuu gaar ah lambar sireed kuu gaar ah ayaa sidoo kale samaysanaysaa lambar sireedka ayaa mar kale ku celinaysaa si aad u xaqiijiso markaad ku celiso kadib halkan su-aal ayaa lagu weydiin doonaa su-aashan waa iska bedeli kartaa hadda waxaana la weydiiyey 2 lagu daray 5 oo la mid ah 7 marka 7 haddaan qorno oo aan register dhahno waan la diiwaan gelin doonaa marka halkaas gmailkaada gelinay halkaas magacaada koowaad magacaada labaad lambar sireedka ku celinaysaa su-aashaana ka jawaabay su-aashan way isbedeli kartaa 2 ku daray noqon kartaa 1 ku daray noqon kartaa 5 ku daray noqon kartaa wax walba ee su-aashaas noqoto waa su-aal isku dar ah waad ka jawaabaysaa halkaas ayaa jawaabta ku qori doontaa kadibna waxaad dhihi doontaa register markaad tiraahdid aad uu ku diiwaan geli doonaa marka uu ku diiwaan geliyo kadib waxaad gali doontaa waxa la yiraahdo website-kaasi toos u gali doontaa casharada ayaa bilaabaysaa aniga marka hadda waa isdiiwaan geliyey mar hore isdiiwaan geliyey waxaan rabaa inaan galo oo halkaas aan ku dhufto login ayaa kasoo galaysaa marka aad soo galayso isdiiwaan gelisa kadib halkaas ay ku qoran tahay login ayaad ku dhufanaysaa halkaas ayaa waxaa gelinaysaa waxa loo yaqaano gmailka aad isku diiwaan gelisay aniga gmailka aad isku diiwaan geliyey ayaa halkaas gelinayaa gmailka aan isku diiwaan geliyey ayaa halkaas gelinayaa kadib lambar sireedkayga ayaa gashan doonaa marka aad lambar sireedka gashto kadib oo ii furmi doonaa marka uu ii furmo kadib waxaan awoodaa in aan gudaha u galo website-ka oo aan casharadii ku tusiyo si aad adiguna igula fahanto waayahay gudaha ayaa u galay aniga waxaa isku diiwaan geliyey waxa la yiraahdo gmailkaas ayaa isku diiwaan geliyey marka aan gmailka isku diiwaan geliyey sida aan hadda kuu soo sheegayo oo kale tallaabooyinka aan soo maray oo kale ayaa soo maraysaa marka aad isdiiwaan gelisay kadib fast English koorsada koowaad aad iska bilaabanay haddii aad hore English wax usoo baratay oo aad wax ka fahansan tahay halkaasoo kaleeto markii kuu soo baxda safe aad iska leedahay si uu mar kale kuu weydiin website-ka inaad dib u gasho oo aad lambar sireed iyo gmail aad dib u geliso safe markaad tiraahdo wuu kusoo xasuusan doonaa marka halkaas marka aad marayso waxaa awoodaa in aad bilowdo luqadda Englishka ayaad bilaabaysaa adiga oo tallaabo casharada aad ayay u yaryihiin balse practice-ka iyo ku celcelinta iyo su-aalaha lagaa weydiinayo iyo ayaa aad ula dhacay oo ah kuwa aad kuu caawin doono wax badanna inaad ka fahanto luqadan kugu caawin doono marka ugu horeysa waxaan tagaa go to my next activity cashirka wada bilaabanayna marka aad ku dhufato wuxuu ku geyn doonaa
koorsadii barashada luqadda Englishka ahayd ayuu bilaabi doonaa. Okay, halkan su'aalo nagu weydiin doonaa ka laabo. Waa kaas halkan imow. waayahay halkaas wuxuu ku leeyahay unitka ugu koowaad casharka ama unitka koowaad ama qaybta koowaad ee barashada luqadda Englishka uu kugu soo dhaweynaya. kadib wuxuu kuu sameynaa learning goals ahdaafta waxbarashada aad ka leedahay. sidoo kale macluumaadii inaad la kulanto tilaabooyinka aan qaadan casharka koowaad aan qaadana marka welcome ku saabsan. marka casharka koowaad aan click siino casharka koowaad waxa uu leeyahay fiiri casharka koowaad waa kaasa marka aan dhageysano. Hello, welcome to the first course English class. This is Sylvie Marquez. Miss Marquez is your English teacher. Have fun with Miss Marquez and the other students in the English class. Click next to continue. waayahay hadda xarjinaya in aad xoogaa wax un luqadda Englishka ka maqashay balse halka waxa ku qoran waxa waaye in uu kugu soo dhaweeyey fasalka koowaad. sidoo kale waxa uu ku baray macluumaadda ku dhigi doonto oo ah Sylvia Marquez oo ah macluumaaddan ku dhigi doonto luqadda Englishka. wuxuu kale ku yiri ku soo dhawo ardayda iskuulka ayuu sidoo kale kugu soo dhawo fasalka joogta. kadib wuxuu ku yiri dhageyso marka halkan waa meesha aad casharada ku qaadan doonto. casharka macluumaadda haddii halkan ay ka hadlayso casharka qoraalaan halkan ayaa ka arki doontaa. sidoo kale marka aad casharka dhageysigiisa aad u baahato waa ku soo ceshan kartaa. listen ayaa leedahay listen waa dhageysi. haddaad rabto inaad joojisid ereyga faham weysid bows waa ku qabanay waa joojinay. markaad rabto inaad daarato casharka aad dhageysato waxaa leedahay listen waa dhageysanay. Miss Marquez is your English teacher. Miss Marquez is your English teacher waa macluumaadaada English ku bari doonta ayaa lagu yidhi islaantan. marka haddii aad casharka markaa intaan fahato kadib waxaa leedahay next oo ah maxaa ku xiga wixii ku xiga ayuu haddana kuu sheegi doonaa. sidoo kale unitkeedii ama qaybaha casharka soo socda uu ka kooban yahay ayuu halkan kugu sharxi doonaa. aan dhegeysan isagana. In this unit, you will learn classroom directions, the letters of the alphabet, how to introduce yourself, how to write your name on a form. waayahay intaas xarjinaydana inaan isla fahnay oo ah si walba ahaataba waxaan kugula talinayaa marka hore koorso muhiim ay ku tahay. marka ugu horeyso waxaad soo iibsataa wax loo yaqaan dictionary ama qaamuuska luqadda Englishka oo Soomaaliga iyo Englishka isku fasirayo. ereyada kugu adkaada halkaas ku qor practice samey ku celceli wixii aad ka fahanto oo Ilaahay kaa fahansiiyo ayaa ka fahmi doontaa. balse waxaan hubaa in haddii sida saxda ah ee website-ka casharada ay ugu diyaarsan yihiin ee su'aalaha lagu weydiinayo aad uga jawaabto oo aad casharada u daawato oo isteebyada iyo tallaabooyinka la qaadayo sida saxda ah u raacdo in muddo 3 bilood gudaheed ah aad wax badan iska bedeli doono barashada luqadda Englishka. marka waxaan rajeynayaa in aad wax badan ka fahmi doonto hadduu Alla yiraahdo. markaad rabto inaad qaybihii hore ku laabato halkaas waxaa ku dhufanay ku qoran tahay menu markaad ku dhufato wuxuu dib kuugu celinayaa qaybihii kale ee casharka. marka cashar walba waxyaabaha yaab kale aan ku arkay waxaa ka mid ah wax la yiraahdo learn activity-ga markaan ku dhufto wuxuu leeyahay quiz practice ku celcelin iyo maxaa la yiraahdaa erayo cusub oo mar walba lagu weydiinayo. dhageysi uu leeyahay wuxuu leeyahay qoraal adiga lagu weydiinayo dictionary aad qorayso oo su'aal cashar walba wax laga weydiinayo iyo waxyaabo kale oo aad u muhiimsan oo luqadda Englishka inaad barato aad kaaga caawinayo. marka mar walbo inaad luqadda Englishka barato muhiim ay ku tahay waana kugula talinayaa. website-kan aniga waa la dhacay waana caashaqay oo qaabka waxbarashada u bixinayo. marka halkii lagu dhihi lahaa hebel Englishka Mareykan Englishka ku soo bartay marka adiga oo gurigaada joogo English ku baro Mareykan iyo waliba Europe ku soo baro. marka waliba hadda Mareykanka ayaa website-kan iska leh. marka halkaas ayaan rabaa inaan ku soo koobo casharkii ama muuqaalkii aan iga hadlayay website-kan la yiraahdo USA Learners oo aad si fudud uga baran karto luqadda Englishka. wixii kaloo su'aala insha Allah waad soo weydiin kartaa qaybta commentiga. aad baa umahadsantihiin. haddii aad channelka cusub tahay fadlan subscribe-ta naga hakranin like inoo saar muuqaalka si uu dad badan u gaaro. aad baa umahadsantihiin. soo dhawaada. asalaamu calaykum.